cilmiga aad baratid kaliya kuma filno aqoontaada marka uu dood kula galo qof rabo inuu diintaada suuban uu shaki geliyo balse waxaad u baahan tahay isticmaalka qayb ka mid ah maskaxdaada maanta waxaan idin soo gudbin doonaa qiso dhex martay nin muslim ah iyo nin masiixi ah fadlan haddii ay tahay markii kuugu horreysay aad soo booqato kanaalkan subscribe ya oo kuma gambaleelka sida u hesha muuqaaladeena haddaan naga mid ahaynne nala sii joog oo likes iyo share nagu dhiirigeli si muuqaalkan uu gaaro meelo badan mahadsanidin haddaba qisada waxay ku bilaabanaysaa nin masiixi ah ayaa wuxuu gurigiisa ku casuumay nin muslim ah oo ay aqoon guud ay ka dhaxaysay masiixigii ayaa soo qabtay canab waxaana uu u keenay muslimkii ayaa canabkii cunay wax yar kadib haddana waxa uu u keenay khamri muslimkii ayaa yidhi xaaraam waaye khamriga mana ii bannaano inaan cabbo masiixigii ayaa yidhi alla maxaa idinla yaabay dadkiinan muslimiinta ah canab ayaa kuu keenay waadna cuntay khamro canab ayaa laga sameeyaa waadna diiday oo waxaad tidhi waa xaaraam ee bal sidee u dhacday ii fasir muslimkii ayaa adeegsaday maskaxdiisa islamarkiina waxa uu ku fikiray inuu tusaalayn uu siiyo ninkan masiixiga ah si uu uga dhaadhiciyo in diintiisa islaamka ay tahay midda keliya ee wax kasta ka hadashay muslimkii ayaa yidhi naag ma kuu joogtaa waxa uu ku jawaabay haa waxaana uu u yeeray naagtiisii muslimkii ayaa haddana weydiiyey masiixigii gabar ma kuu joogtaa masiixigii ayaa yidhi haa wuuna u yeeray ayadane haddaba maxaa dhacay muslimkii ayaa yidhi balse ii sheeg sababta uu ilaahay tan kuugu banneeyey ee ah naagtaada laakiinse tan kale ee ah gabadhaada ay kaaga tahay xaaraam iyadoo sidaasi aad og tahayna gabadhaada ay ka timid hooyadeed masiixigii ayaa inta uu fikiray islamarkaana ogaaday in shayga asalka ah aysan ku xirnayn shayga faraca ah haddaba gabadha aad dhashay waxay ay kaa tahay xaaraan halka hooyadeedna ay kuu bannaan tahay canabkane haddaba khamriga waa naga xaaraan haddaan nahay muslimiin balse canabka waa uu noo bannaan yahay masiixigii ayaana sidaasi ku islaamay wuxuuna qirtay tawxiidkii qisadani waxaan ka faa'iidnay in aad maskax adeegsato marka aad dadka diintan wanaagsan aad u sharaxaysid mahadsanideen